Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada kanaalka Daruuraha oo aad mar walba kala socotaan barnaamijyo xiiso leh. Waxaana barnaamijkeena maanta uu ku saabsan yahay nin kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ka xaday saaxiibkiis ay iskuul ahaayeen. Hase yeeshee kitaabkaasi uu xaday ee uu gurigiisa dhigtay uu horseeday in ninkani uu soo islaamo oo uu soo galo diinta Islaamka. Qofkii uu Alle hanuun la doono ma jirto cid ka hor istaagi karta inuu soo galo diinta Islaamka. Qofkiise uusan Alle u qorin wax hanuun ah ma jirto cid dariiqa toosan ku soo duwi karta. Inta aanan guda galin qisadan cajiibka ah, fadlan like saar boggeena Facebook-ga, siina share garee muuqaalkan oo la wadaag saaxiibadaada si warbixinadeenu ay u gaaraan dad badan. Sidoo kale subscribe saar barteena YouTube-ka ee youtube.com/daruuraha. Magaciisu waa Treke Smith. Waa wiil dhalinyaro ah oo reer Canada ah, kaas oo markii uu dhiganayay fasalkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare uu wax uu ku qiyaasay buug caadi ah ka xaday saaxiibkiis ay fasalka isla dhiganayeen, kadibna boorsadiisa dhabarka ayuu ku ritay wuxuuna u qaatay gurigiisii. Meel ayuu iska dhigay, hase yeeshee 3 bilood iyo bar kadib mar uu Treke nadiifinayay gurigiisii isagoo isku diyaarinaya inuu u guuro guri kale ayaa waxa uu mar kale helay kitaabkii Qur'aanka Kariimka ahaa, wuxuuna bilaabay inuu akhriyo isagoo sheegay in mar waliba oo uu xoogaa ka akhriyo kitaabka ay sadaradaasi saameyn weyn ku reebayeen noloshiisa. Treke Smith waxa uu ka soo jeedaa qoys Masiixiyiin ah, waxaana tan iyo yaraantiisii uu aad u quudareynayay inuu fahmo diimaha, isagoo qaadan jiray kalaas ama xiise diimaha kala duwan ee caalamka ah sida Kirishtaanka, Hinduusamka, Sikhismka, Buddhismka iyo kuwa kale. Balse waxa uu dareemayay in ay mar waliba jirto diin kale oo sax ah oo aan ahayn inta uu akhriyay. Macallimiintii Bible-ka u dhigaysay ayuu Treke weydiiyay su'aalo, hase yeeshee waxa ay siin waayeen jawaabo macquul ah, waana midaas tan keentay inuu walaal Treke aad u sii dhex galo fahamka diinta Islaamka. Intii uu iskuulka dhiganayay waxa uu Treke bartay dhalinyaro badan oo ka soo jeeda Bariga Dhexe, kuwaas oo wax badan u sharaxay diinta Islaamka. Waxa uu ka sheekeeyay maalin nin saaxiibkiis ahi uu u kaxeeyay masjidka si uu u soo eego sharaxaadna looga siiyo diinta Islaamka. Markii aan masaajidka galay waxaan la kulmay meel camiran oo ay muslimiin badani ku cibaadaysanayso. Waqtigaa waxaan u labisnaa si ka duwan qaabka aan maanta u labisanahay. Sanka ayaa ii durnaa, katiinad, faraantiyaal iyo jijimo ayaanan xirnaa. Waxaa si fiican la iigu sharaxay diinta Islaamka. Hase yeeshee markii aan soo tegay ayaa waxaa isu kay qaban weysay dadka wanaagsan ee Islaamka ah ee aan bartay iyo warbixinada ay telefishinada iyo warbaahinta reer galbeedku mar waliba ka gudbiyaan Islaamka. Waxaan ogaaday inay wax qaldan yihiin, waana midaas sababta aan aad ugu sii dhex galay aanan gudaha ugu galay Islaamka, ayuu yiri Treke Smith. Inta uusan soo islaamin waxa uu Treke sheegay in uu dhowr jeer arkay calaamado muujinayay inuu diinta Islaamka doorto ama ku jiro nolosha jaantaaroganta ah ee isaga iyo saaxiibadiisa ee magaalooyinka quruxda badan iyo wax waliba oo xumaan ah dhexda looga jiro. Waxaana ka mid ahayd habeen uu sheegay in isaga iyo saaxiibadiis oo caweynaya wax walbana qasanaya uu go'aansaday inuu iska tago. 20 daqiiqo kadibna ay gurigii lagu caweynayay hareereeyeen boolisku kadib markii goobtaasi ay ka dhaceen dambiyo. Salaada ayuu sheegay in wax badani ay ka bedeshay noloshiisii hore, haatanna uu dareemayo deganaan iyo naf xasilan, walow ay 2 dariiq kala qaadeen isaga iyo saaxiibadiisii hore. Haatan saaxiibadaydii hore waxay ii arkaan in aan meel xun ka baxay, hase yeeshee anigu waxaan aaminsanahay in aan waddo sax qabsaday 100%, waayo waa markii iigu horeysay ee ay naftaydu xasisho, ayuu yiri walaal Treke oo haatan muddo dhowr sanadood ah ku dhagan diinta sharafta badan ee Islaamka. Waxyaabaha uu markii hore la yaabi jiray ayna ku adkayd fahamkeeda waxa uu sheegay inay ahayd weesada iyo dadkan biyaha ismarmarinaya. Hase yeeshee markii uu bartay ayuu walaal Treke sheegay in qofka muslimka ah uu yahay mid mar waliba nadiif ah oo dahaaradiisa qaba. Isku soo wada duubo
wuxuu Drake sheegay inuu ka baxay noloshii hore ee qayaaliga ahayd ee baabuurta quruxda badan iyo boodboodka ku qotontay, balse haatan uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celinayo in uu dariiqa toosan ku soo duway. waxaa intaasi inooga eg warbixintii aynu kaga hadlaynay wiilkii kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ka xaday saaxiibkiisii ay iskuulka wada dhiganayeen, hase yeeshee kitaabkaasi uu xaday ee uu gurigiisa dhigtay uu horseeday in uu soo islaamo oo uu qaato diinta Islaamka. fadlan muuqaalkan haddii aad dhamaysatay like saar una share garee saaxiibadaada kale ee Facebook, aad ayaad ugu mahadsan tahay la socodkaaga. I'm a revert to Islam, and basically so how it all played out was it all started with like a stolen Quran, which sounds as crazy as it sounds crazy. Basically, growing up, I was really spiritual. Daruuraha